بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، marka koobaad ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad iska leh, mahad idaylkeed ilaahaygiis na makaniyey caawa inaan isugu imano guri beyt buyuudda alla ka mid ah annagoo maaragtay muxaadaro iyo wacdi u fadhino. ilaahaygaas subxaanahu wa tacaala mahad ballaadhan iska leh. marka labaad waxaan insha allahu tacaala mahad fiican u qirahayaa iyadana xuduurka muslimiinta khayrka jecel ee mar walba ka qayb gala muxaadaraadka oo mar walbaba aanan seegin. marka saddexaad waxaan mahad gaar ah u qiraynaa dayfkeenna caawa martida inoogu ah muxaadaradan insha allahu tacaala qayimka noqon doonta fadiilatu sheekh bashiir axmed salaad ood garanaysaan dhammaantiin ood ka wada dharagsantihiin, guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed caana ka ah soomaaliya iyo soomaali meel kastay degtaba. sheekha insha allahu tacaala caawa marti inoogu ah farxad badan bay inoo tahay. caawa wuxuu ka hadli doonaa sheekhu muxaadaro ku saabsan duruusun tarbawiya min alhijrati annabawiya, casharada tarbiyadeed ee laga soo qaadan karo ama laga faa'iidaysan karo hijradii nabiga sala allahu calayhi wasalam. marka waxaan leeyahay dhammaantiin si fiican ha loo dhagaysto, ilaahayna ha naga yeelo kuwa si fiican hadalka u dhagaysta ee kiisa wanaagsanna qaata. waxaan kusoo dhaweynayaa fadiilatu sheikh, falyatafadal mashkuuran maajuuran. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذه السكالة ما هذا لكوب كريم كلن كان إنه قدري وحان كل هذا علينا يا علماء مسجد كا يا شيخنا الشيخ محمد أمل، هي مؤسسة إحسان، هي دمان علماء فكرتنا لها جزاهم الله خيرا. لما أنت أنا الله نجا أقبله أعماشنا هي فريقنا هي عبادتنا هي كلموين كنا أنت أسكتب سيدا مغليسان محاضرة عنوان كذو حويه عشره دنك التربية dhanka wacyiga ah, dhanka caqliga iyo maskaxda ah oo laga faa'iideysan karo hijradii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam. maadaama sanad hijri ah uu noo bilowday ayaa waxaan isiri bal dhacdadaas weyn oo qiimaha badan oo muslimiinta agtooda qiimaha ku leh oo la odhan karo bal caalamka ayay beddeshay wax yar oo aan dul istaagayno qaar ka mid ah. marka intaanan gelin casharadaas xoogaa muqadimo ah baan ka hormarinaynaa, kadibna waxaan ku khatimi doonnaa xoogaa tacliiqa haddii la yidhaha insha allahu tacaala. muqadimadu waxaa weeye in alkhulafaa uraashiduun gaar ahaan cumar radia allahu canhu oo wakhtigiisa ay bilaabatay in muslimiintu isticmaalaan ama lagu taariikhayo hijrada maxaa ku bixiyey. dhacdooyin kalaa jiray maaragtay mawlidka nabi sal slam yani dhalashadiisaa jirtay, waxyiga oo soo degay ayaa jiray asna. nebigu sala allahu alay wasalam xataa dhimashadiisa oo lafteed wax weyn ahayd baa jirtay, laakiin maxaa lagu asteeyey in loo doorto hijradaas inay noqoto taariikhda muslimiintu ay ku taariikhaysanayaan. waxay muujinaysaa hijradaasi
isbeddelka ay tilmaamayso isbeddelkaasoo ah الرسالة المحمدية أو آخر الرسائل الرسالات رسالة داس إن ميل استاكتو أو ميل كإفتينتو وهجان كبني آدم كهجامين له أي باللوضة أنت كهريس مكة أيام مرتلقوها لكن مركب مدينة له جرودي ضد بيل دجن أو مقع له أو مامول له أو موقع له أيال النقضي taasoo bilowday inay ahaadaan dad jira oo lagu xisaabtamo oo waxay fiirinayaan la qadariyo bimacnaa waxay noqdeen dawlad jirtay noqdeen oo ku soo biirtay maamuladii jiray taas baa keentay marka in loo doorto hijradaasi inay noqoto astaanta taariikhda muslimiinta hijradaasi ama taariikhdaasi bilaha loo yaqaano maaragtay qamariga ayay cuskanaysaa bilahaasoo ah bilaha xagga ilaahi subxaanahu wa tacaala laga ictiraafsan yahay waayahan waxaa la yaqaan ictiraaf ba aad loo jecel yahay moogta bilaha xagga alle laga ictiraafsan yahay ama xagga alle laga qirsan yahay ama xagga alle ka socdo xisaabtoodu xagga alle ka socoto waa bilaha loo yaqaano shuhuur al-ashhur al-qamariya weeye oo bilahan hijriga aan niraaho weeyaan taasna qur-aanka caddaynaya Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahran fi kitaabi illah yowma khalaqa asamaawaati waalard minha 4 xurum dalika diinu lqayim bilaha tiradooda alla agtiisa baa la yidhi kow alla agtiisa weeye waa 12 bilood alla agtiisa fii kitaabillaah kitaabka ilaahay sida ku qoran waa labo yowma khalaqa asamaawaati waalard maalintuu maaragtay ilaahay samaawaadka arlada uumay ka soo bilaabata waa 3 cinda allaah kitaab allaah maalintii kownkan la abuuray bay bilaabatay marka bilahaasi bilo laandheeraa weeye oo kitaabka ilaahay ku yaalla oo alla agtiisa ka xisaabsan oo markay bilowdeen shalay iyo maanta maahane maalintii kownka la abuuray bilowdeen marka waxaan nahay ummad taariikhdoodu qadiim yahay baan nahay laakiin annaga isdayacnay oo dhulka isdhignay ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala minhaa 4 xurum bilahaas 4 bilood oo xurmo leh ayaa ka mid ah taasoo caddaynaysa bilaha loo jeedo oo 12 ka ahi kuwa miilaadiga maaha maxaa yeelay kuwa leh 4 xurmada leh kuwa hijriga weeye waxaa lagu khatimay dalika diinu lqayim arrinkaasi waa diinka toosan waa kaas baa la yidhi darsigeenna caawa darsi fiqhi ah ama maaragtay maxaan ku caqiida ma aha ama axkaama ma aha waa darsi soo gala maadada loo yaqaano fiqhu siira siirada 2 shay baa loo akhriyaa marna siirada waa la dareeriyaa waxaasaa dhacay marna waxaa la yidhi ha dhaceene horta maxay tilmaamaysaa maxaa laga faa'iidayaa maxay nu tusinaysaa marka casharkeenu maanta waxa weeyaan waa fiqhu siira dhacdadii hijrada ahayd oo dhacday waxyaalaha qaarkood wey kulligood maaha waxyaalaha qaarkood ay tilmaamayso ayna fahamsiinayso oo laga fahmi karo oo caqligeena iyo maskaxdeena kobcinaya baan ka soo qaadanaynaa cilmiga noocaas fiqhu siirana waa cilmi hore loo qoray weeyaan waxaa ugu caasa kitaabka la yidhaaho zaad almacaad oo ibnu qayim uu leeyahay ayaa ku caan ah inuu siirada uu sheego dhacdooyinka uu sheego waxa ay tilmaamayaana uu sheego nabigeena sala allahu calay wasallam qisooyinkiisa in lagu cibro qaataa loo baahan qur-aanka can kariimka iyo xataa alaxaadiid nabawiya intaasoo qisaa lagu sheegay oo tiro badan oo ummadihii hore ah baa lagu sheegay ambiyadii hore ah lagu sheegay wax imaan doona baa lagu sheegay oo qisooyin ah marka qisooyinka ayaga maxaa loo sheegayaa
waxaa loo sheegaya waxaa weeyaan in lagu cibro qaato weeyaan alla wuxuu leeyahay laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab sheeko maa keli ah waa in wax laga fahmaa cibraa loo baahan yahay وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك النبي صلى الله عليه وسلم وحنا ليه أنبياء الرسل عن كهريي أيام كاقصون إنه سي قلبي جاء الله سجوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما رت أنبياء ما رتي محكورة أسوء وسته حق شرفته هي حق مكانه ذا أيام وحنا ليه قصون كي كهريي اللي شيء جاء وحيكون رئيسه qalbigaaga bay xoojinaysaa ay adkeynaysaa aayad kale Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun nabiga qisooyinka sheeg dadku ha fakaraane marka cibro qaadasho waa la sheegay qalbigoo sugnaada oo qofku uu ka qaado geesinimo uu ka qaadana waa la sheegay qofku fakarana waa la sheegay qisooyinkaasi ama siiraha ahaadaan ama wax kale ha ahaadaane waxaa loo sheegay waxaa weeyaan inay fakar nagu abuuraan oo su'aal la isweydiiyo oo laga shaqaysiiyo maskaxda baa loo jeedaa sheekha la yiraaho cabdiraxmaan as-sicdi raximahullahu tacaala markuu fasirayay aayaddan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkaruun wuxuu yidhi lianna annaas dadku idaa fakkaruu hadday fakaraan calimuu waxbay ogaadaan hadday fakaraan waxbay ogaadaan wa idaa calimuu hadday wax ogaadaanna camiluu waxbay sameeyaan anu waxaa leenahay ma wax la sameeyo ma la hormaro waddan maa la mideeyo ma xagga la aado ma saas la yeelo waxaa ka horaysa horta ma fakirtaa ka horaysa لأن الناس إذا فكروا ذاتك هذي فكران ويكون عين محن نقول عين محا كيني حقيقة كتمد هذا محا حلقة محا نجا خردمي يا خردمي ما نجا خردمي ما نجا خردمي كل مياه خردمي ولا سعودية ذاتك هذي فكران بالليري وحبي أوجادان كو هذي أوجاداننا وحبي سميان وتلابي قاضان marka qisooyinku waxa weeyaan waxay kugu bixin lahaa inaad tilaabo qaadid oo isbedel sameeysid baa loola jeedaa darsigeena caawa taariikhdii hijrada iyo say u dhacday ka sheekayn meenu waxay rabtaa waa qaadateen laakiin hijradii dhacday oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka hijrooday Makka uu hijrooday Madiina oo halkaas loo guuray oo waxyaalo badan ay dhaceen maxay tilmaamaysaa kow waxay tilmaamaysaa waxa horta lala guuray oo meesha laga waday waxa dhulka loo raadinayaa maxay yihiin waxa la isku haystaa maxay yihiin waxa lala guurayaa waa diin weeye marka diintu qiimaha ay leedahay iyo qaayaha ay leedahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ka waa magaaladiisii weeye dadku waa dadkiisii raggu waa raggiisii gurihiisii baa ku yaala waa in aad loo yaqaano laakiin waxa ishkaalka abuuray waxa weeye diintii iyo risaalo la yimid ayuu boos uga waayay meesha marka diintii buu la tagayaa meel buu u raadinayaa marka diintu waa shay qiimo leh oo naga astaahila in guriga laga tago in maal laga tago in dib fara badan la maro si diinku u badbaado insaanku intaasoo shay agtiisa qiimo ka leh waa sax naftaadu qiimo leedahay maalku qiimo leeyahay wax badan baa qiimo leh laakiin waxaasoo dhan diinta qiimaheeda baa kow ka ah diintu waa ra'sumaal baa la yidhi waxa kale booskooda waxbaa geli kara laakiin haddii diintu aad weysid waxa diinta booskeeda geli kara ma ay jiraan nabi sallallahu alayhi wasallam xadiidkan buu ku leeyahay axmed warinaayo إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب إلهي الدنيا وصية قفوا جعليها يقفوا سنجعلين با الدنيا ويا هيستان مد في عم با هيستا مد حم با هيستا مد في عم با فقيرة
mid xun baa maxaan ku rahaa xoolo haysta ilaahay adduunka wuu siiya qofu jecel yahay iyo mid uusan jeclayn walaa yucti diina ilaa liman yuxib ilaahay diinka wuxuu siiyaa qofka uu jecel yahay keliya ayuu siiyaa marka adduunku miisaan maaha xoolihiisu miisaan maaha magaciisu miisaan maaha mansabkiisu miisaan maaha waxa miisaanka waa diin qofkii ilaahay diin siiya qofkaas ilaahay waa rabaa subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay qofkaasi wax weyn baa la siinaya waxaasoo ah ridaha ilaahay jannadiisu heli doonaa marka diinka intaas gooya oo ridaha ilaahay gooya subxaanahu wa tacaala oo jannada ilaahay gooya waa shay qaali ah wey haddii musiibo dhacayso inay meel kale aado ay ku fiicanta waatuu xadiidku ahaa walaa tajcal musiibatanaa fii diinina ilaahu musiibadeena diinteenna ha yeelin kolba haddii wax imaanayaan meel kale ha aadaan nabigana sala allahu alay wasalam wuxuu ku ducaysan jiray adkaar sabaax walmasaa allahuma innii asaluka alcafwa waalcaafiya fii diinii wa dunyaaya buu odhan jiray ilah waxaan ku weydiisanayaa caf baan ku weydiisanayaa waxaan ku weydiisanayaa badqab inuu ii badqabo diinkaygaan ku weydiisanayaa iyo adduunkayga iyo maalkayga iyo ahalkayga marka diinkaas qiimaha leh ayaa keenay in nabigu sala allahu alayh wasalam uu ka tago magaaladiisii uu ka tago dadkiisii uu meel kale aado markaas waa cashar marka diinta qiimihiisa maanta annagoo iska degannahay diinteen wax badan oo culays naguma hayso alxamdu lillahi tacaala sidaan u malaynayno way isku toosan tahay ila tahay garamays dhib badan ma jiro xoogaa salaadaada iska tuurtuuro ma garatay soonsoonka ku dardaro dhib badan ma jiro laakiin markii diinta bilowga ahayd diintan magaceeda la isku haystay kan labaad waxaa weeye waxay noo faa'iidaynaysaa alhijra nabawiya in diinkaanu u baahan yahay bii'ad uu ku fido ama ku shaqeeyo diinkan ama iimaanku waa noole oo kale noole sida insaanka oo kale ama maaragta noolaha kale ama geedaha oo kale weeye wuxuu u baahan yahay meel uu ku noolaado u baahan yahay hawuu u baahan yahay biyuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay elays buu u baahan yahay inuu ziyaaduu rabaa iimaanku inuu kabcuu rabaa marka haddii bii'ada loo waayo bii'adaas waa lala raadinayaa haddii caqiidada lagu haysto oo lagu leeyahay maxaa u rabaysa diintan meesha ma joogi kartid haddii lagu leeyahay maxaa u tukanaysaa meesha ma joogi kartid haddii salaadda la diido caqiidada la diido xijaabka lagu diido meeshaas meelu joogi karo may aha marka diinka in loo raadiyo bii'ad iyo meel uu ku socon karo uu ku neebsan karo baa loo baahan yahay suu u kobco suu u ziyaado suu u muuqdo si loogu camal falo marka diinkaani qalbigan ku wataa keliya lagaa yeeli maayo war maa tukatid oo maxaa kaaga jira qalbigay igu jirtaa diinteedu qalbigay igu jirtaa qof aan fiicnayn oo alle ka baqaynin oo aan tukanaynin wax kasta samaynaya haddana wuxuu ku leeyahay shiikhow labadeenna arma anigu fiicanahay buu ku leeyahay maxaa ku fiicnaysiiyey qalbigii miyaa og tahay qalbiga allah kuu hagaajiyo alxamdu lillahi taala waa khayr weeyaan laakiin diinkaani in lagu camalfala lagu talagalay haddii diinkaani qalbi iskaga jiri karo makuu iska joogi lahaa laakiin diinkaani inuu bannaanka u soo baxuu rabaa in la arkuu rabaa in la addimuu rabaa shacaa'irtiibuu rabaa marka diinkaani diin meel marti ku ahaan karaa ma uu aha waa diin raba inuu muuqdo si loogu daydo oo risaaladu ay u muuqato nabigana sala allahu calayh wasalam saxaabadiisa mar buu ku yidhi xabashi aada markii dhibkii batay oo caqiidadii laisku maaragta maxaanku laisku dilay oo salaaddii laisku dilay wuxuu yidhi xabashi boqor baa jooga caadil ah oo aan qofna lagu dulmin karin agtiisee ninkaas aada markaa meeshay aadahayaan inay diin fidinayaan ma aha inay dowlad oogayaan ma aha caqiidadooda iyo tukashadooda inay ammaan u helaan bay rabaan waa darajo mucayana laakiin markii madiine la aadahayey
waxa loo aadahayay caqiidada iyo salaadii boos loo helo maahane waxa weeye mashruucan iyo barnaamijkan meeshuu ku fidi lahaa ama ka istaagi lahaa ama ka muuqan lahaa ayaa loo raadinayaa weey marka laba mashruuc oo kala waaweyn weeyaan midda saddexaad waxayna baraysaa hijradaas ama ha noqoto tii xabashi loo aaday aamintaan ha noqotee nabigeena sallallahu alayhi wasallam dadkii uu soo saaray oo saxaabadiisa ahaa in dadka laga dhameeyo laga dilo buu diidan yahay dadku ilaashanaya dadkiisa ayuu meel ammaana la rabaa inay tagaan dad qiimo la weeye waa yar yihiin laakiin diinkan iyo tawxiidkan iyo badbaadada bani aadamka bilowgeedii weeye waa dad haddii la waayo diinkan la waayo weeye marka dadkaas inay meel tagaan ammaan ah nabi sallallahu alayhi wasallam waa ka fakarahay dadkiisa ayaa walwal ku haya dadkiisu xaaba ma aha guba jannada galaysaana ma aha diintaanu diintii asxaabu khuduud ma aha diintaan wayna fahamnaa ummadda asxaabu khuduud ma aha ummaddaani waa ummaddii dhulka camiraysay weeye dad baa ka dhimanaya waa sax wayattakhida minkum shuhadaa dad baa shahaado helaya waa sax laakiin ummadda waxaa loo keenay inay shahaado wada helaan ma aha ummaddan waxaa loo keenay inay kulli wada gubtaan ma aha ummaddan waxaa loo keenay inay diinta oogaan markay diinta oogahayaan waxbaa dhimanaya sax weeye xoolaa la waayahaya dhib maa baraya laakiin mashruuca aan dhimanna maaha sidii jirta maanta dadka ha la gubo dadku maxaan ku waraha wax iska baaba'an maaha dadka muslimiinta ahi cinda allah cinda rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam dad qiimo la weeye maxaa yeelay dadkii risaaladan xambaari lahaa weeye dadkii risaaladan cilmigeeda laga arki lahaa weeye dadkii risaaladan camalkeeda laga arki lahaa weeye marka haddii dab lagu shubo maxaa la arkaya maxaa la arki maayo nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintii badar intaysa dhicin oo asaga ilaahay bariyey subxaanahu wa tacaala muxuu ilaahay ku baryey wax badan waxaa ka mid ahaa ilaahow haddii kooxdaan la halaago ay halaagsanto maantay oo saxaabadiisa abuu leeyahay ilaahu lagu caabudi mahayo buu yidhi اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض إله هدي جماعة لها لا بعضه أو لقى هذا مانتي إله لقى عابدين ما هي بمعنى عبادة إلى دين إلهي ضد كان كحرنتها أيجا في ذنايا أيجا لقى أركايا أيجا أود ذاليا هدي أيجا لقى معضه ويبابان ويستاجسا مرضى قيبان نعاس آين ما كفكر النبي صلى الله عليه وسلم يفكر كلو توصل فكر كسو توصل وحاوية ومدى مسلم إن لور هذه بدبادو إن لور هذه إني فافان أو خير هلانوي إن لور هذه سيدي دين تو ذا أي وما كنسن لها أيام بلو بهاي ومدى ما أردت تبقى هالوشوبة ما كا إسكت جوجا ماشينا إسكت جوجا كو جبتا أو كو جامارة لما أورانين waxaa la yiri mar xabashi aada oo xaga soo nafisa asii baa jire hadana xabashi kale ku noqda baa la yiri hadana madiina aada baa la yiri dadkan baa la waardiyeynaya oo ilaa hadii la rabo kulligood inay shahaado helaan marka iska joogi lahaayeen halkaas lagu duban lahaa oo lagu baabiin lahaa marka diintaanu dadkan baa iska leh dadkan baa dadkeedii ah ayaga baranaya ayaga fidinaya marka hadii dad la waayo diintan la heli maayo marka mashruuca ummadani waa mashruucu risaala wa khilaafa weey ee mashruucu shahaada wa ukhdud ma wayna fahmna afraad nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuuna bariya darsigaani hijrada nabiga sallallahu alayhi wasallam maka cabaar buu joogay wuu hadlay wuu wacdiyay waa laga qaadan waayey intaasoo jeer buu yidhi yaa ayuha annaas quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu buu ohan jiray nabiga sal alayh wasalam wuxuu ohan jiray man yu'wiinii war yaa i dhowaynaya war yaa i dumaya war yaa i taageeraya saar u guto
ومكة ودلكيسي وقبيل كيسي لكن وفهم الأيهين markay ka faa'iideysan waayeen oo 13 sano la dul joogay markay xariga qabsan waayeen markay jaaniska ka faa'iideysan waayeen waa laga guuray waa laga tagay maka waa meel sharaf badan laakiin dad balaa baa degay dad aan fiicneen baa degay abu jahl baa degay abu lahab baa degay niman balaa inkaar qaba ayaa dadkii hor taagan marka risaaladani maka iska barakaysan mayso risaaladani dad qaatay u baahan tahay haddii reer marka qaadan waayeen waa laga tagayaa magaalooyinka dad kale ayaa loo guurayaa saasay noqotay raggii laandheeraha ahaa oo maka meel laga mara la waayay waa laga tegay risaaladii iyo diintii iyo khayrkii niman kale oo iska masaakiin oo meelaha iska degan baa ka faa'iidaystay oo sharaf ku helay oo cizi ku helay abu jahl ahlunaar buu noqday abu lahab ahlunaar buu noqday jaaniskii waa ka faa'iidaysan waayey laakiin niman masaakiin oo fuqara ah ayaa risaaladii qaatay bilaal xabashi ayaa qaatay daf salmaan alfarisi baa la tegay daf suhayb ruumi baa qaatay daf raggaas ka faa'iidaysan geed rag baa helay oo ka faa'iidaystay waana ku liibaaneen marka risaaladani waa jaanis weey haddii jaaniska aadan qabsanin oo aadan ka faa'iidaysanin oo xariga aadan ku dhaginin dadku waa badan yahay weey macnaheedu dad kala qabsanaya dad kala ka faa'iidaysanaya dad kala ku liibaanaya ee iska jir وفي حديث كوها إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إلى كتاب كان قرآن كاه ضد أيو كوكوريه لهيه أو كشرفيه ضد هري أن مقع لهين أن مقام لهين أن حبها يسنين باكور نقنايا ويضع به آخرين ضد كلو كرجري مركي هري oo la qiimeyn jirana dhulkay galahayaan waa la waayay meel ka baxeen marka fursadaas jaaniskaas bay tusinaysaa markay faa'iideysan waayeen waa laga tagay madiina la aaday waa la haajiray dad kala soo baxayba ummada kala soo baxayba quraysh fatxu makka baa la dul yimid markaas laga furtay magaaladii ayuu fadhiya meesha marka waxa uu jaanis laga faa'iideysan waa laga tagayaa diintaani dad kale oo ku liibaana oo ka faa'iideysta oo u khidmeeyay bay helaysay iska jir weey macnaheedu cilmigeeda baro ka faa'iideyso amalkeeda ka faa'iideyso hadaahin shan waxay noo faa'iideysay jirnay annabawiya nabi sallallahu alayhi wasallam markii uu hijroonayay uu baxayay muxuu sameeyay wuxuu galay غار الثور buu galay god buu galay intii uu san bixin magaalo ka baxay oo ka baxay Makka meel god uu galay saddex bari buu ku jiray halka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku dhakanaa saddexda bari shaqa socotay sahayda la keenayay warka magaalada la keenayay sidii xusocdaan shaqa socotay Abdullaahi ابن أبي بكر رضي الله عنه وهو قابل سنة بلا يري إنه مقالة وركين ذا كيانه نكلم قابل سنة إنه حوجا عنا كانوا ما أرث لقوته ما كشقة أيضا أو هجرة ضد بدن أيام نتشحنا أي ونبقى يبو كلها نبى بيربو محن كل كذا ما أرث أو ككابه هي مركز شقة ينك وين هي مشاريع في عنا قيمها له يكون جحيسة إن تضبطني أي مارك إسكابان أو نبأ بالقبته يكون في عنته لازم يكون جحيسة
nebigu sala allahu calayh wasalam markuu baxahayey waa darsiga lixaade cali radi allahu canhu ayuu yidhi seexa meeshaan si gaalada loo wareeriyo ay u maleeyaan inuu maxamed weli meeshii jiifo waa mid tan kale nebigu sal sl xoogaa ammaanooyin ah iyo wax kala dhexeeyey dad kale iyo mucaamalooyin lagu lahaa ayuu kala ballamay cali radi allahu canhu inuu kala dabero oo dadkaas xoolahoodii iyo ammaanooyinkoodii kala siisiiyo caawana uu seexda meesha cali sidii buu sameeyey nebigu sal ly slam isagoo hijroonaya oo maka laga cayriyey oo joogila buu ka fakarayaa dadka ammaanooyinkoodii iyo mucaamalooyinkoodii iyo wixii laysku lahaa anna maxaan samayn lahayn kuwaana cayriyey waxooda miyaa xoogaa maaragtay jihaadka lagu kaalmaysanaya waxba imaayaan yaa jihaadka dacwada maaragtay ayaa lagu kaalmaysanaya kolba khayr ma lehe garamaysid nebigu sal allahu alayh wasalam caqiidadiisa iyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa ayaa u diidaysay in dad xataa aysan isku fiicnayn ama dad maxaanku waraa gaalo qaarkood ah oo mucaamalo kala dhaxayso inuu waxoodu qaato nabi slam uu qaato wuu diiday wuu ka ballamay in ammaanada la guto oo dadka ilaaha loo geeyo buu ka ballamay nebigu sala allahu alay waslm maxaa yeelay waa assaadiqu alamiin weeye wax kastoo dhaca ha la iskhilaafo dagaal ha jiro laakiin nebigu sal alay waslm waa la yaqaanaa run iyo ammaano ayaa lagu yaqaanaa dadka ma aha hadda xoogaa iskhilaaftaan waxaa isku ogeedeenba shht ka dhigaya maaha diinteenna islaamku waa mabaadi waa akhlaaq weeye waa sharaf waa wax cusub oo dadka ku abuurhaya inay qiimeeyaan marka waxaa la waardiyeynayaa qiyamta weeyaan waa akhlaaqda waa caqiidada waa ammaanada la waardiyeynaya marka waxaa diinta u socotaaba in awood leesha keliya maaha awoodda waxaa lagu waardiyey mabaadida la waardiyeynaya mabaadidaasoo ah ammaanada iyo runta iyo daacadnimada iyo ikhlaaska iyo dadka oo maaragtay loo hagarbaxo dadkoo daacad loo noqdo dadkoo aan la khiyaanin mabaadida noocaasa bay diintaa la timid marka nebigu sal allahu alayh wasalam isagoo baxahaya ayuu ammaanada gutay ammaanada ilaashay ka dardaarmay ka ballamay sala allahu calayh wasalam walidaalika diinteenna iyo nebigu sal alla alay wasalam iyo saxaabadiisa iyo rususha marnaba laguma arag khiyaano iyo ballanka bax waa la waayey nebigana sal allahu alayh wasalam isagoo cadow badan lahaa oo qoraysh ay jeclayd inay ceeb ka helaan ceeb waa la waayey waadna la dagaalamayaa aalihadeennu caayahayaa ha la yidhaahta waa sax laakiin been buu sheegay waa la soo waayey xooluu qaatay waa la soo waayey ballamuu ka baxay waa la soo waayey ma jirto saas wey marka taasaa cusub laakiin in qof la dilaa ma cusba ogaada in qof laga xoog bataa ma cusba laakiin in akhlaaqda la ilaaliya waa cusub tahay allah subxaana wa tacala qur-aankiisa wuxuu noogu sheegayaa in muslimiinta laga adkaan karo dagaalka wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas xataa ambiyaa la dilay rasuul baa la dilay ma garata dhiiggoodaa la daadiyey dad wanaagsan baa la laayey dadka wanaagsan waa laga adkaan karaa dagaalka laakiin akhlaaq loogama adkaan karo waa la waayey marka akhlaaqda iyo qiyamtu ma qaybsanto xaggeennay jirtaa dagaalka waa sax marna waa la ka adkaanayaa marna waa adkaanaynaa laakiin run agteennay taallaa ammaan agteennay taallaa ballan agteennuu yaallaa ma qaybsamo walidaalika asaadiqu alamiin waa la dhaafin waaye asaadiqu alamiin waa la dhaafin waaye abu sufyaan markii la weydiiyey oo boqorkii hiraqle uu weydiiyey qisa waa taqaana ma filayaa wuu yidhi ninkaas aad maaragtay aad dagaashan tihiin oo maxamed ah ballan ma gasheen haa baydin kaga baxay wuxuu yidhi maya
boqorku wuxuu yidhi waa saas ambiyadu ballanka kama baxaan buu yidhi garanaysid marka nabiga sal alla alay wasalam iyo diinteennu diin ammaano weeye qofka xataa ay khiyaana qofka xataa ay dulmiya anuu ma dulminaayo mana khiyaanahayo marka haddii aragtid diinta sheega haddii aragtid diin sheeganaya oo dadka dulminaya oo xoolahooda qaadanaya oo dhiiggooda daadinaya dadkaasi waddadii ma hayaan awooddaasi awood islaam ma aha awoodda islaamku waa awoodda uu kitaabku hago kitaabkii awoodda kee wax haga kitaabkaa haga awoodduna waa taabic laakiin awood ka horeysa kitaabka ka horeysa oo kitaabka khilaafsan awooddaasi waa awoodda libaaxa weeye waa awoodda maroodiga weeye laakiin awoodda muslimiintu waa awood kitaabka ku xadidan weeye nabigana sal allahu alay wasalam isagoo badar jooga oo dagaalkii loo taagan yahay ayaa xudayfa ibnu yamaan iyo aabbihiis baa yimid oo soo hijrooday oo markay soo socdeen quraysh oo soo socotaa aragtay qoryaa maxaa ahaydeen wallahi nima meel iska marayaan ahaynoo madiinan ka soo adeeganayna ay u soconnaa waxayna waayahay wadan sii deynaynaa dagaal baan u soconnaa muxamed ha la safanina ballan miya waa ballan bax marka way tageen waa muslimiin isqarinaya way yimaadeen nebigu sal alay wasalam oo badar jooga u yimaadeen iyo saxaabadii oo dagaalka isku diyaarinaya waxay ku yidhaaheen yaa rasuul allah nimankaasaan soo marnay waxaan ka soo ballan qaadnay in aanan dagaalka gelin waan ka soo ballan qaadnay ee ka war wuxuu yidhi waaye ma galaysaan buu yidhi ballanka oofinaynaa buu yidhi ilaahay baana kaalmaysanaynaa subxaana wa tacaala waa dagaalka taagan yahay rag buu u baahan yahay laakiin muxuu diidayaa in la yidhaaho bay kuwii beenta sheegay fiimna ku jiraan buu diiday in la yidhaaho ma jirto wuxuu yidhi ballanka oofiya ilaahay baan kaalmaysanaynaa subxaana wa tacaala alimaam nawawi raximah tacaala oo tacliiqin xadiidkaas wuxuu yidhi nebigu sal ly slam wuxuu diidahayey qaalat asuu hadalka xun ayuu ka cararahayay oo saxaabadiisa iyo diintiisa iyo asaga soo gaaraysa buu ka cararayay oo ah ballankiibay ka baxeen buu ka cararay nebigu sal alla alayh wasalam marka diintaani diin sharaf la weeye waa diin aan waxun ogolayn in lagu tilmaamo toddobaad nabigu sal alla alay slam markuu baxahayey nin mushrig ah oo la yidhaha cabdullaahi ibnu urayqid oo mushrig ah laakiin waddada yaqaana ayuu la heshiiyey wuxuu kula heshiiyey inuu madiine gaarsiiyo laba halaad ay lahaayeen waa u dhiibeen waa nin mushriga weeye muslim ma ah maxaa lagu aaminayaa mashruuc weyn baa lagu aaminayaa isna wuu yeeray sidii buu sameeyey ballankiibuu ka soo maaragtay ayuu oofiyey markii 3 bari lagu jiray godkii asaga ah oo la soo baxay ayuu labadii neef buu keenay waa waday nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar wada aan la aqoon oo qarda jeex ah ayuu marsiiyey waa nin mushrig oo gaal ah xawaagiisu qaadanaya waa nin shaqadana yaqaana ballankana yaqaana weeye taas macnaheedu tahay dadka laga faa'iideysanaya marka qaarkood dad kale ahaan karaan qof gaal baa ku faa'iideyn kara qof gaal ku daaweyn kara qof gaal ku difaaci kara qof gaal ku anfici kara bani aadamka ayagoo kala diin ah bay kala faa'iideystaan nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu maka joogay adeerkiis Abi Talib oo gaal ha difaaci jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu Taif aaday uu soo noqonayay maka waa soo gali waay illa nin gaal uu yiri soo gal ana ku difaacahay falku ma saari kare nin gaal oo raganimo buu yaqaana u garamaysid nabiga sallallahu alayhi wasallam marka waxa weeyaan dadka noocaasa oo wax u galay walow gaalaha ahaadeene nabiga sallallahu alayhi wasallam ma iloobi jirin wuu ammaan jiray wuu xusuusan jiray waxa lagu yiri adeerka Abi Talib uu ku difaaci jiray waa ku caroon jiray wax ma taraysaa maalinta qiyaame
wuxuu yidhi waanu shafeecay waxaa la yidhi cadaabka ugu yar ayaa la gelinayaa baa la yidhi waa la cadaabaya waa gaal lama cafinaayo laakiin gaal la cadaabo kan ugu yar baa laga dhigayaa baa la yidhi adiga dartaa waa shafeeco wey nabigu sal allahu alayh wasalam markii beder 70 gaalo soo qafaashay wuxuu yidhi haddii ninkii la budc ibnu cadiy waa ninkii maka soo geliyey rudaafka imaanaye haddii ninkaasu noolan lahaa maanta buu yidhi uu odhan lahaa nimankan ii siidaa 70kaa buu yidhi waan u sii dayn lahaa buu yidhi nabigu sal alayh wasalam amaalkuu garanaya maantana maxaa arkaysaa dad waxaa arkaysaa xataa kuwii muslimiinta ahaa aan aqoon amaalkooda arkaysaa aan qadarinaynin gaal iska daa muslimkii buuse amaalkiisa aqoonin kii wax baray buuse amaalkiisa aqoonin hebel waa gaaloobay baa la leeyahay dhiiggiisa bannaan baa la leeyahay ilaa yowmina haadaa gaaladu isku mid maaha gaalo waxaa jirta ammaano leh gaalo waxaa jirta taqaana qof kale maxaa laga rabaa bal iska daayo gaalo waxaa jirta ilaa hadda difaacoo u dooda falastiin baa jira oo difaacay maxay ka rabaan waxay ku leeyihiin maxaa laga rabaa dadkan maxaa loo dulminayaa bay ku leeyihiin waana gaalo markaan ka wadaa qofka muslimka ahi qofka kale wax tara waa inuu qiimeeyaa oo qadari u yaqaanaa weeye ee gaalo gaal ma tahay iska daaya maanta xataa muslimiintii baa dabka la marinaya oo la gubahaya aan la qiimeynayn marka khibrooyinka iyo dadka in laga faa'iidaysto oo qofka muslimka ah mashruuciisa dad kale xataa aan muslimiin ahayn uga faa'iidaysan kara baa laga fahmaya nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu hijroonayay uu dadaalay god buu galay 3 wuxuu ku jiray habeen buu ku jiray godkaasoo aqaari thawr kadibna sallallahu alayhi wasallam wada qarda jeexuu maray habeenkii gurigiisa cali buu siixay nabigu sallallahu alayhi wasallam maka ilaa madiina nabigu sallallahu alayhi wasallam wuu socday asagoo rasuulkii ilaahay sallallahu alayhi wasallam oo ilaahay israa micraaj baa sameeyay meesha xogaa ma la fududeeyo dhag ma laga siiyo ma jirto god baa la gelayaa waa la lugeynhayaa waa la daalahayaa waa la kululaanayaa waa la haraadayaa maxaa yeelay adaa wax lagu barahayaa marka adaa wax lagu barahayaa waxaa lagu barayaa diintaani dadaali u baahan tahay diintaani sabari u baahan tahay nabigu sallallahu alayhi wasallam nabiga ilaahay ah ayaa dhibtooday oo maka ilaa madiina rati saarnaa mar lugeynayay oo haraaday adigana ka kac meesha way macnaheedu nabigu sallallahu alayhi wasallam tawakkalka ilaahay subxaanahu wa tacaala way ku jirtay ducaa ku jirtay alla ku xanaan baa ku jirtay laa taxzan ina allaha macana ayaa ku jirtay maca dalika nabi sallallahu alayhi wasallam asbaabtu la imaanay ittikhaad alasbaab iyo tawakkul isaaran weeye marka sagaalaad waxaa noo muuqata dadaal bani aadam baa noo muuqata tafkiir bani aadam nabi sallallahu alayhi wasallam asagoo dadaalaya oo fakaraya suu ku badbaadi lahaa suu ku nabadgeli lahaa baa kuu muuqata xooluhu bixinaya sallallahu alayhi wasallam xooluhu bixinaya nin buu soo kariisanayaa god buu ku dhuumanayaa qarda jeex buu marahayaa wuu fakarayaa wuu dadaalayaa taas macnaheedu tahay dadaal bani aadam ayay diintan u baahan tahay markaas baa ilaahay kuu kaalmaynayaa oo lagu kabahayaa oo karaamo lagu siinayaa oo mucjizo lagu siinayaa marka diinta asalkeedu iyo faafideedu mucjizo maaha diinta asalkeedu faafideeda waa juhdi bashari baa kow ka ah dadaal baa kow ka ah in la dadaala kow ka ah markaas baa karaamooyinku imaanayeen mucjizooyinku imaanayeen maalintii jibriil waxyiga soo degahayeyba baa ka fahmaysaaba jibriil baa yimid waxyigiibuu keenay muxuu keenay iqra bismi rabbika aladii khalaqa buu keenay waa mashruuc weyn waa risaalo waa diin haye jibriilow xoogaa lacaga ma sidid miyaa mashruuca ma miin maxaa lagu wada hayaa
jibriil oo xagga ilaahay ka yimid subxaanahu wa tacaala waxyi unbuu keenay shilin ma keenin waa la yaab waa mashruucaas iyo waxa imaan doona iyo dadka maagdi diintan soo geli doona iyo dadka baahan doona kuwa jiran doona kuwa la dili doona agoonta imaan doonta mashruucan weyn maxaa lagu socodsiinayaa jibriilow iqra bismi rabbika alladii khalaq waana iska tegey waa shay la yaab la moogta muxuu yahay macnuhu waxaa weeye risaaladan iyo diintan dadka wadi doona iyo waxa lagu wadi doonaaba dhulkay yaallaan weeye dadka raaci doona ayaa difaaci doona dadka raaci doona ayaa xoolaha bixin doona ayagaa samayn doona maxaa yeelay haddii lacag la keeno hadda waaba la geli kulligeedba waa la iska buuxinayaaba dalaq xoogaa waa la qaybanayaa moogta haddii jibriil keeni lahaa xoogaa lacaga u keeni lahaa oo xagga alla ka timi subxaana wa tacaala xoogaa kuus ah oo qofkii kale xoogaa loo laabahayo meel kaa hari lahaa abulahab baa imaan lahaa abujahal baa imaan lahaa war meeshaan habaa lagu sheegaya aan iska buuxin buu odhan lahaayeen ma jirto shil ma yaalla meeshaan diin baa taalla caqiidaa taalla ma aaminsan tahay soo gal maya joog meeshaa saas ku bilaabatay barigii dambe oo la tegay madiino oo khayrka la helaa xoogaa munaafiqiin la helay laakiin barigii hore diintu cirkaasay maraysay marka waxaa weeye diintani waa diin ku dhisan dadkeeda ayaa aamina dadkeeda ayaa barta dadkeeda ayaa difaacda ayagaa wada markay saas yeelaan ayaa xagga alle subxana wa tacaala laga kaalmaynayaa mucjizooyin baa imaanaya karaamooyin baa imaanaya khayrkaa imaanaya saasay noqotay nebigu sal ly slam madiinu tegey markuu madiino tegey isagoo soo hajiray muxuu ka bilaabay masjid buu dhisay guri ma dhisan marti weeye masjid buu dhisay taas macnaheedu yahay mashruuca diintan iyo risaaladan masjidka ayaa asaas u ah salaada asaas u ah tawxiidka asaas u ah masjidka ayaa nolosha saamaynaya suuquu saameynayaa siyaasadduu saameynayaa masjidka ayaa laga biyo cabbahayaa isagaa laga waraabahayaa saasay noqotay laakiin annagu maxaa nahay annaga suuqeenna ayaa masjidka saameeya dukaan baa leedahay waa soo xiraysaa laakiin maskaxda ku wadataa dukaankii awaatiba soo gelaysa masaajidka meheradii waa tukanaysaa waxbaa iibinaysaa waxbaa soo qaadanaysaa waxbaa dhoofinaysaa waxbaa soo degaya dubay baa aaday china aaday waa soo dejisay kualamboor baa aaday assalaamu calaykum baa kugu xigtay marka waxaa weeye suuqeennii baan soo qaadaynaa masaajidkaan keenaynaa laakiin waxaa loo baahan yahay in masjidka la qaado oo suuqa la geeyo weeye uu siyaasadda saameeyo uu dukaanka saameeyo oo la arko ninkii dukaanka lahaa oo naxariisanaya oo deyn bixinaya oo sadaqa bixinaya laakiin maxaa noogu dheggan deynta maanta maya berri haa baa noogu dheggan berri baa timid maanta maya berri haa bimacnaa waxaa weeye dii lama ogolo weeye soo garan weysid macnaha marka masjidku inuu saameeyaa la rabaa biic mushtarka inuu saameeyo makhaayadaha inuu saameeyo tagsiilaha waxaan ka sheeganayno oo nolosha xun iyo khiyaanada iyo imtixaanka waxaa weeyaan masjidkiisa ammayntiisa ayaa baaba'san macnaheedu ma aha in masjidka laga dhigto xafiiska dowladda shardi ma aha laakiin masjidku waa inuu xafiiska saameeyaa baa loo baahan yahay nebigu sal alla alay wasalam masjid buu dhisay dadkii soo hijrooday iyo kuwii loo yimid oo ansaarta ahaa ayaa la walaaleeyey almu'aakhaa baa la sameeyey mujtamac cusub oo la isku xirayaa la isbarahayo oo mabda uu mideeyey wax cusub weeye awar dadku waxaa loo deganaa qabiil loo degan laakiin dad aan isku qabiil ahayn oo isku yimid oo mabda uu mideeyey oo ujeeddo leh oo ahdaaf leh waa shay cusub weeye dadkaa la mideeyey
dadka la walaaleeyay mujtamac marka cusub baa soo baxay kow mujtamac waa kala jaad isku nooc maaha reer quraysh reer madiina dadka loo yimid baa jooga meesha dadkaanu waa isku hadaf dadkaanu waa isku hogaamiye oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkaanu waa isku hal cadow oo quraysh gaaladaas ah marka ummad midaysan hadaf midaysan leh qiyaado iyo hoggaan midaysan leh cadowgooda taqaanaa ummadaasi kuwa diinta soo gaarsiiyay weey maantana maxaan haysataa ummad aan cadowgeeda aqoonin aan walaalkeeda aqoonin aan hadaf lahayn aan ujeedo lahayn aan madax lahayn aan kala dambayn lahayn ugu dambayn markaa fiirisid nabiga sallallahu alayhi wasallam siduu wax ku waday oo ku soo bilaabay waxa ii soo baxday afar da baa ii soo baxday hadaan soo dhaweeyay weey nabiga sallallahu alayhi wasallam dacwo sameeyay dad buu helay markuu dad helay dal ayuu helay markuu dal helana dawlad buu noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas ayaa dagaal bilowday difaac bilowday marka dagaalku wuxuu imaanayaa markii dacwadu midho dhasho oo dadkeedu qaato oo dadkaas dalkooda yeeshaan oo dadkaas dawlad noqdaan dadka noocaas ayaa wax difaaci kara laakiin imanka maanta ka bilaabay meeshii u dambeysay laga bilaabo hala jihaadoy war maxaa jihaada dacwadii aaw dadkii aaw diintan yaa raba qofka Soomaaliga ah qabiilkiisu rabaa diintan waa dambeynaysa qabiilka raba horta looma dhamma sama maqal maxay tahay macna looma dhamma waa qabiil moogta Soomaaligu qabiilkiisa diintiisa taqriiban macnaha waxa koobaad oo lagu xisaabtamayo oo la iska wareysanayo markii waagu u baray waxa weeye ka waran dalkii ka waran qabiilkii xagee noo mareysay qaybtay ma helnay waxna soo kala weey marka qofka Soomaaliga ah wali qabiilka iska aaminsan oo diintiisu ay tahay balaan B bay galay diinta Soomaaliyeed ama balaan C weeyaba balaan A waxa weeyaan waa annaga tolkeena iyo maxaan helna weey laakiin balaan B balaan C way dilisay marka dadkii aan diinta fahmin oo aan diinta inay u shaqeeyaan oo nafta u huraan oo maalka u huraan aan gaarin haddii la dagaalamo dagaalkaas keligaaba ku noqonaysaa waana waxa maanta taagan weey dagaalka ay wadaan qolonka maartay dhalinyarada muxuu yahay waa dagaal ay keligood ku noqdeen markay ummadii waayeen ay ummadii marka khasbeen marka ummadii waayeen moogta ummadda aan dacwo u qarcin ama mabda fahmin hadaa horboodid oo ka haraan una baahantahay maxaa tala wada u baahnahay dagaal baan galay dadaan u baahnahay dhiig baan u baahnahay xoolaan u baahnahay ummaddiina ma hayo maxaan samaynayaa ayagu maxay sameeyeen ummadda way khasbadeen jihaadka gal ama ku dilaya xoolaha keen ama ku dilaya soo saas ma saas weey maxaa u dilaysaa jihaadkii baa socon la jihaad socon la waa jihaad ummaddiisii ka soo booday weeye jooji ummadda dib ugu noqo dacwo soo fidi dadka diintooda bar goorta noqonaysa Allah garanaya ummadda aad soo dhaaftay ha khasbina ummadda dib ugu noqo duruusta ka soo booday dib ugu noqo dadka diinta bar idan shaqada ku taala dagaal ma ahane shaqada ku taala dacwo weeye dadka diinta loo sheego weeye taas ka soo booday marka soo boodana dadkii aan diyaar ahayn baa tiri aan dagaalanno waxa lagu yiri maya waxa tiri waa dagaalamayna lacagta keena mayno ku dilahayaa waana dhacday marka maxay dilaysaa jihaad baan wadaa jihaadka hadaan ma aaminsan jihaadkaagu sax ma aha leeyahay ka jawaab adnoomi miyaadnoomi maahay waxba isku aadisay aniga iyo hebel iyo sheekhiga hebel iyo ayman dawaahiri iyo hebel samaan fulan meel fariistay waxba istuseen saan la aragtay
daanu ma aaminsan nimankaas haye marka mashruuc aan aaminsanayn aniga lagu khasbi karo maxaa yeelay adigu nay ma tihid qofka khasabka leeyahay waa nabiga sallallahu alayhi wasallam mashruuciisa waa sax 100% waxa kale khasab leh qofkii umadu ay doorato inuu hogaamiyo khasab inuu leeyahay maniyo jihad baan wada waay hada qofkii marka ku qanca ayaa wax ku darsanaya kii kalena iska daa ka war qofkii yiraahdo maanta masjidkan baa dhismahaya masjid sigis ay dukaamada bastoolooyin qaata qofkii aan bixin qaaranka soo dila sax miya maxaa jira soo masjid ma masjid weeye loo baahan yahay lagu tukanaya khasab ma laakiin masjid weeye laakiin khasab ma masjid baan khasab ahayn agooma ka faala qaadaya qofkii soo bixin way soo dila sax miya sax ma marka masjid la dhisayo iyo agoon la ka faala qaadayo ما خصب أهينه مشروع هذا سوق العصي أنت من فريستي معاك وراها هذا استوصي هذا في عيني هي هذا وضع لكن أمضى هذا يسهر بن كده خصب كمالهد ومضى مسجد كالرسية خصب كو أهين أقونتا خصب كو أهين ولا استاجيا وريا صدق يسانا يا كي صدق يستر الحمد لله رب العالمين كي كان ومهزية ومسجد وأقون وي مركب مشروع سياسي oo dadka wada xataa aan la arkaynin meel joogan aan la tashan aan la xisaabtami karin aan su'aal la weydiin karin aan la niqaashi karin hadana xoolaha keen nafta keen sax ma markuu ridaal nabi sallallahu alayhi wasallam diintiisa dacwo ka bilaabay dacwadii waa loo qancay dad baa raacay dadka mashruuca raacay dal bay heleen dawlad bay noqdeen markaas cadow laga dhigtay si dagaalameen hadana maxaa socda dagaal baan ka bilaabaynaa si dad loo helo dacwo loo qaato waxa weeyaan waxa loo yaqaano اتجاه المعاكس ما مقش وجزيرة شوكت ما تقانا الاتجاه المعاكس وهي مرك مشروع أصقع يعني كل يران أنت وحويان وعشرة ذي أنا كقبحنا إن شاء الله تعالى ماركتي الهجرة النبوية أنا كبرنا إني هنقصوا ختمة يا هجرة ذي رجع ذي بقاطي واتكت هجرة ذي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار صوما رجع صواتك آيات أقول جرت سورة التوبة قلت سورة داس آيات داس وأنا بركة متقانا آيات داس السابقون الأولون نبر كذا وابقل ترى واحد أسير محل ولا جيدا واحد أسير أرميتها معنا هذو بقول كي بقول بي برموسين أرميتها معنا هذو والله أعلم أهانكرتها نمبر كذا آيات داس وابقل سورة التوبة بمعنى رجعس والله شابذي ومعنى والله شابذي ويجود بين مارك محكوفرا هذا وحكوفرا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان كفرا تذكر أن أمانتد كدم بيسيد رعيد كفرا وكديتد وحكوفرا إن أهاتد الإخوان النبي صلى الله عليه وسلم قبورته يمد وحجر مال نسي صحيحة waxaan jeclaystay inaan ikhwaankayga arko weelaan yaa rasuulullaahi oo miyaan ikhwaankaaga ahayn wuxuu yiri maya idinku asxaabtayda tihiin laakiin ikhwaankaygu waa dadka aan wali imaan buu nabi sallallahu alayhi wasallam kuwa Allah naga dhigo subhanahu wa ta'ala maxaa lagu noqonayaa tawxiidka lagu noqonayaa waxa lagu noqonayaa salaada waxa lagu noqonayaa cilmiga waxa lagu noqonayaa manhajka salafka la raaco manhajka salafka dacwada ee culimada aanu wadaan masjidkan jooga iyo kuwa la midka ah oo nabiga sallallahu alayhi wasallam kugu xirahaya iyo saxaabadiisa iyo taabiciintiisa iyo culimadii hore dacwada noocaas barakaysan oo sanad kale oo laandheeraha ah ayaa lagu raacayaa oo lagu helayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa wadadaas qaada Allah naga dhigo jazaakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh